Bismillahirrahmanirrahim. Caawa ay taariikhdu ku beegan tahay 11 bisha 9aad 2020 madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdulcasiis Xasan Maxamed Afdagarin hooga ugu degan yahay magaalada Muqdisho ayaa ku soo booqday madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni. Booqashada madaxweynaha ayaa ku khudantay salaan iyo isxog wareysi xaaladda guud ee dalka uu marayo iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka. Sidoo kale labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay sidii loo wada adkeyn lahaa wada shaqeynta labada dowlad goboleed. Kulankan oo saacado badan qaatay waxaa qayb ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Dr. Cali Saciid Faqi iyo sidoo kale kusimaha wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya, taliyaha ciidanka asluubta dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka mahadnaqay booqashada caawa uu ku yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni. Waa mahadsantihiin, wabillahi tawfiiq.